madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu farin u diray golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo kaga dalbanayo in xilligan dalka aan laga saarin ciidamada ATMIS ee la qorsheeyay inay sida ugu dhaqsiyaha badan wadanka uga baxaan. Muxuu madaxweynaha cuskanaya maxay tahay farinta uu hadda dirayo iyo sababta uu rabo wali inay ciidamada ATMIS dalka u sii joogaan. Warbixintan aynu daawadaal ku eegi doonaa ee soo dhawaada. Daawadaad nagu cusubta nagu soo bir muuqaalka sheergarayso dad badan u gaar mahadsanid. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan waxa uu farin u diray golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaana uu kaga dalbanayay in xilligan dalka aanay ka bixin ilaa 3,000 oo kamid ah ciidamada howlgalka midowga Afrika ee ATMIS kuwaas oo la qorsheeyay wadanka inay isaga baxaan. Ujeedka ugu weyn ee madaxweyne Xasan Sheekh qoraalka uu qoro waxa ay tahay maadaama dalka uu ku jiro dagaal ka dhan argagixisada in furin kale ay ku soo furmi karto haddii ciidamada ATMIS ay isaga baxaan wadanka. waxa uu ka dalbaday golaha ammaanka qaramada midoobay in laga fiirsado arrintan isaga oo sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay walaac ka muujinayso in xilligan la daabulo ama la dadgureeyo ilaa 3,000 oo kamid ah ciidamada ATMIS. madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu sheegay in ciidamadan hadda la qorsheeyay in dalka laga saaro ay howlo muhiim ah hayaan. waxa uu tilmaamay inay qayb ka yihiin howlaha lagu sugayo amniga xarumo muhiim ah oo dowladda sida madaxtooyada, xarumaha baarlamaanka iyo waliba sidoo kale xarun muhiim ah oo dowlad goboleedyada dalka ku yaala. isaga oo sheegay in wali dowladdu aanay isu diyaarin sidii loo sugi lahaa ammaanka xarumahan oo ciidamada Soomaaliyeed ay u sugi lahaayeen. waxa uu ka codsaday in muddo 3 bil ah dib loo dhigo oo laga fiirsado maadaama dalka uu ku jiro marxalad adag oo ku aadan in al-shabaab la xoreeyo. qoraalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku suntanaa taariikhda 19 bishan September oo u diray golaha ammaanka iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay la ogyahay haatan kulamo in uu u soconayo ama ay ka ashirayaan xaaladaha guud ee dunida. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliya gaar ahaan ciidamada xoogga dalka aysan wali diyaar u ahayn inay si toos ah u buuxiyaan goobaha ay baneeyaan ciidamada ATMIS gaar ahaan goobaha ay hadda sugayaan ammaankooda ee xarumaha dowladda gaar ahaan kuwada muhiimka ah. sababtu waxay tahay ciidamada xoogga dalka oo dhan waxay u jeesteen sidii ay dalka uga ciribtiri lahayn al-shabaab iyadoo doorkii ATMIS ee dagaaladan markii horeba meesha uu ka maqnaa haddana waxay keeni kartaa culays ah in ciidamo badan oo la filayay inay howlgallada kaalin weyn ka qaataan in la keeno xarumaha si ay u ilaaliyaan taasoo aanay suuragal ahayn. waxa uu ku celceliyay fariinta ah in ilaa 3 bil la siiyo dowladda federaalka ciidamadanna aan la daabulin oo ay sii joogaan sidoo kalena mushaarkooda la siiyo. tani waxa ay imaanaysaa xilli dowladda Soomaaliya hore isugu diyaarinaysay inay si tartiib ula wareegto goobaha ay baneeyaan ciidamada ATMIS. hase ahaatee dadka falanqeeya arrimaha amniga iyo guud ahaan siyaasadda waxay sheegeen qoraalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu ku soo aaday waqtigii loo baahnaa sababtoo ay tahay maadaama wadanka uu ka soconayo dagaal xoogan welina ciidamadii oo dhan loo jiheenayo furimaha dagaalka iyo dalka inay al-shabaab ka saaraan haddii ciidamadii ATMIS ay ka baxaan goobihii ay ilaalinayeen inay taasi keeni karto culays kale oo dhanka ammaanka ah isla mar ahaantana sidoo kale ay keeni karto in dunida qudheedu ay dhabar jibinayso howlgalka dowladda Soomaaliya ay go'aansatay dalka uga xoreynayso al-shabaab. muddo badan dalal badan oo dunida oo aad u taageera Soomaaliya waxa lagu eedeynayay inay san raali ka ahayn in dalka laga xoreeyo al-shabaab oo xitaa marar badan la isku dayay howlgallo in la qaado dowladda waaweyn ay hor istaageen oo ay sheegeen inaan la joogin waqtigooda. hase ahaatee dib u doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu go'aan kama dambaysa ku gaaray in dalka nabad laga dhigo oo la xoreeyo. sanad ka badan ayuu dagaalka ka soconayaa hadda dalka oo al-shabaab lagu bacsanayo waxaana dowladda federaalka ay sheegtay in ahmiyadda koowaad ay siinayso in dalka la xoreeyo wixii ka dambeeyo la iska warsan doono arrimaha kale ee howlaha u yaala dowladda dhexe. sida muuqatana madaxweyne Xasan Sheekh waa uu ka dhabeeyay balantiisii waxaana soconaya howlgallo ballaaran. haddaba daawade adigu ma kula taaragtidaada in xilligan dagaalada ay socdaan ciidamada ATMIS guud ahaan laga saaro wadanka mise waxaad is leedahay in ay joogaan ilaa inta howlgalka uu ka dhamaanayo? aragtidaada waa muhiim qaybta hoose commentiga noogu reeb muuqaalka share garay soo dad badan u gaar mahadsanid.